shaki kuma jiro nimankaas inuu gabalkoodu dhacay waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed inay hadda ka hor aaminsanaayeen nimankaas inaan lala dagaali karin inaan laga adkayn laakiin waxaan tijaabinay oo dawladda madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminaya ay tijaabiday dadka Soomaaliyeedna ay tustay in nimankaasu ay yihiin dadka kuwa ugu daciifsan gabalkoodaasi dhacaya waa waqtigoodii dhammaaday waxaad ka dareemi kartaa ficilada liita oo hadda ay sameynayaan oo xalo ugu dambeeyay ay xoolo xira iska fadhiyo are ay leynayeen oo dadkii maaragta halkaas ay kala sii dagaalamayaan marka nimankaas shacabka Soomaaliyeedna waa u arkay in lala dagaali karo laga adkaa karo aad ay u tabaryar yihiin hadda xilliga la joogana naftu waaba ku dabayartaa marka waxaan leenahay shacabka gobolka Banaadir aan iska dulqaadno dadkaas khawaarijta oo xilligoodii iyo waqtigoodii gabagabada u yahay